I'm I leaving wouldn't Canada. describe Moving out of Canada. British college as a diploma. shacabkii dalweynaha Canada oo wadanka iskaga qaxayo sababaha ay uga qaxayaan wadankooda oo sidoo kale Mareykanka u qaxayo iyo sababta Mareykanka ugu qaxayaan sidoo kale dadkii ardayda ahaa ee Canada waxbarashada loo diiday ee qaxoontiyada laga qaaday ama laga soo qaaday oo Canada la keenay oo sidoo kale amar lagu siiyay inay wadanka ka baxaan kadib markii la gaaro xilliga waxbarashooyinka ay u dhamaadaan ama sidoo kalena iskuulada in markii ay dhameeyaan iyo jaamacadaha sidoo kale waxa ugu badan dadkaasi dadka qaxootiga laga soo qaatay oo wadanka Canada uu qaxootiga ka soo qaadan jiray sanadihii la soo dhaafay sanado aad u tiro badan dhowr 20 sano in uu arday ka soo qaadan jiray wadamada qaxootiga leh sida wadanka Kenya oo kale qaxootiyada xerooyinka Dadaab iyo waliba meelo badan oo kamid ah wadanka Kenya sidoo kale adduunka daafihiisa ayuu wuxuu ka soo daabulahaya arday uu waxbarasho u keenay wadanka Canada si ay waxbarashadooda uga dhameystaan ama heer jaamacad sidoo kale ardayda bundooyinka fiican ku guuleysto ayuu sidoo kale ugu daneeni jiray waliba qaxoontiga ah oo muhiimada ugu weyn ay tahay in ay qaxoonti yihiin marka arintaas ayaa sidoo kale cirka isku sii shartay waxa amar lagu siiyay markay waxbarashadooda dhameystaan inaysan Canada wax shaqo ah aysan ka raadsanin sidoo kale postgraduate markii ay dhameeyaan wadankoodii ay dib ugu noqdaan hadii ay shaqo ka helayaan iyo hadii aysan ka helaynin intaba sidoo kale dadkii Canada u dhashay ayaa sababay arintan ayada sababtay u sameeyeen waxa weeye inay wadankii iskaga yaacayaan sabab xiriiro inaysan macnaha ishay dhaqaale ku filan xitaa hadii shaqooyin waaweyn ay ka shaqeeyaan aysan kaafinaynin lacagaha ay ku shaqeeyaan sababtay u kaafinayeen tahay tariifska iyo waliba sidoo kale cashuuraha xad dhaafka oo Donald Trump uu saaray wadanka Canada sidoo kale sicir bararkii oo cirka isku sii shareerahay saacadba saacada ka dambayso ama bilba bisha ka sii dambayso uu ka sii darahay sicir bararkii wadanka Canada dadkii sidoo kale qaxoontiga ahaa oo Canada ay qaadanaysa xitaa ay awoodi weyday ama qarash ay u weyday IOM-ta inaha ku maalgeliso si hay'adahan ay uga shaqeeyaan in dad working class ah oo ka shaqeeya shaqooyinka hoose oo aad muhiim ugu ah Canada sidoo kalena wax soo saarkeeda iyo GDP-geeda ama dhaqaalaheeda celceliska ah aad ugu macnaha tiirsanaa oo wadan kasta oo maanta caalamka kamid ahna uu sidoo kale aad ugu tiirsan yahay dadka working class-ka ah dadka shaqooyinka hoose ka shaqeeyo maadaama wax kasta ay hoos ka soo bilowdaan hadii production-ka iyo manufacturing ama wax soo saarkii uu sare u kacada sidoo kale wax kasta ay cirka marayaan dhaqaalihii wadanka u fiicnaanayo celcelis GDP markii la sameeyo isku qiimeeyo dadka taxpayers-ka ama lacagaha canshuuraha laga soo ururiyo dadkaasi working class-ka sidoo kalena shaqooyinka adag qabto lacagaha yaryarna qaato oo macnaha ishaga wadanka sababaha loo geenayo wadan kasta inuu uga faa'iideysto dadkan awoodooda iyo waliba energy-gooda uu uga faa'iideysto in uu lacaga badan ka sameeyo sidoo kalena tax laga qaado ama canshuur laga sii qaado si ayagana ay fursad ugu noqoto inay wadankan ku noolaadaan balse arintaas ayaa cirka isku sharatay saacadii la soo dhaafay waxaana sababay qolooyinkii cusuriyiinta ahaa ayaa sidoo kale afka furtay oo Canada waxay leeyihiin hadii viisaheeda uu ka dhacay oo Canada aad macnaha visa temporary ah ku timid waa inaad wadanka iskaga baxdaa iyo waxyaabo noocaas waxa rabaa in ay leedahay muuqaalo dhowr ah wasaaradaha Canada oo sidoo kale cirka isku sii shareerayo marba marka ka dambayso arimahan si qoto dheer u falaqeynayo oo looga hadlayo qaabkii loo xakameyn lahaa dadka reer Canada ee wadanka ka sii yaacayo ee ayaga wadankii u dhashay iyo waliba sidoo kale in la yareeyo lana musaafiriyo dadkii jaamacad baan dhiganaynaa ama jaamacadan ayaan idin ogolaanay dhigta markii aad dhameysaan shaqooyin macnaha ay sheegay sidoo kale loo soo bandhigi jiray oo ay ka shaqeyn jireen inaysan wax shaqo Canada u heenin ayaa loo sheegay ama sidoo kalena amar lagu siiyay bal horta muuqaaladan ay idin la wadaago. They say they're protesting around the clock until they get answers as to why their post-graduation work permits were denied. We applied for a postgraduate work permit and they have been refused. The only reason they're refusing a work permit saying it's non-credit, which doesn't really, to my sense, it doesn't really make any sense because there wasn't anything mentioned about non-credit in the website. sida arkaysan muuqaalkaas waxa lagu qeexay ama lagu xaqiijiyay in macnaha dadkan work permit-ka uu sidoo kale macnaha ogolaanshaha loo ogolaa inay wadanka shaqeystaan kadib markay waxbarashadooda dhameystaan oo ah dadka qaxootinimada lagu keenay inay waxbarashada buundooyinka markay fiican ay keenaan
wadanka Canada la keenay si ay waxbarasho uga sii wataan sidoo kalena work permit la siin jiray wadan ku sii noolaan jiray ilaa ay sharci ka qaataan 3 sano markay u buuxsanto weeye dadka amarka lagu siiyay aan la rabin inay wadanka sii joogaan. I wouldn't describe Portage College as a diploma mill. There have been instances where I think unscrupulous operators have set up diploma granting programs and taken advantage of students. I think perhaps Portage maybe overstated the pathway to permanent residency. But our view is that if you come here as an international student and your visa expires and you don't have permanent residency, you need to go home. But it also goes to the Prime Minister's earlier point that if those students have the skills that we need, then we're best positioned to be able to offer them permanent residency. At the moment, we only have 6,400 spots. I think we've got 40,000 people who have sought permanent residency from us, and so that's why we... sida arkaysan waa wasaaradii shaqaalaha iyo shaqaaleysiinta iyo waliba Prime Minister Canada Mark Carney oo asagana garab taagan ayaa waxay si wada jir u shaacinayaan in ardayda skillskooda laga helo kaliya inay Canada ku nagaan doonaan si shaqooyin loogu raadiyo ama loola daydayo si sidoo kale wadanka ay u sii joogaan balse aysan ahayn for guarantee for sure in aan loo haynin wax macnaha xaqiijin ah ama guarantee aan loo siin karin ardaydaas markii ay Canada imaadaan oo waxbarasho u imaadaan si automatic ah ama si macnaha ay sheegay sidoo kale aan shaki ku jiro in ay sidoo kale Canada u sii joogaan waxaasina isku soo dhamaadeen sababaha sababayna in ay tahay sababtan hadda idin wada ugu weyn oo ah sababta Canadiankii kuwii wadanka u dhashay aysan u xamili karin culayska wadanka gudihiisa ka jiro dhaqaale burburka guriyihii oo aysan kireysan karin xitaa hadii ay shaqooyin waaweyn ay ka shaqeeyaan. I'm leaving Canada. I'm moving out of Canada. I'm leaving Canada. I'm leaving Canada. What if this just isn't social media? What if an entire generation is giving up on Canada? Well, let's look at the receipts. Since 2021, 467,000 Canadians have left Canada. Here's what's really happening. Young Canadians aren't just leaving because homes are expensive. Homes have always been expensive. Every generation complains of the price of housing. They've got a $10,000 down payment and a pre-approved mortgage for $120,000. But every time they found a house, they've lost out to someone else. When wages grow slowly and the price of housing far exceeds that growth, waxyaabaha ugu waaweyn oo shacabkii Canada u dhashay wadanka uga qaxayaan ayaa sida cadeymaha aan idin tusahayo aad ku aragtaanba waxay sababeen in wadankan sidoo kale iskaga yaacaan ayaa ah in wageski iyo waliba sidoo kale kirada guriga guri la gadan karin ama la iibsan karin xitaa hadii laba jubaar lacagii lagu shaqeyn jiray ay ku shaqeeyaan horta waxa la sheegay sidoo kale waligeedba in Canada guryaha iyo guriyeynta sidoo kale housing systemka inuu waligiisba qaali ahaa taasina ay macnaha ka kaabi jirtay wadanka inuu isbixiyo in dad working class ah dad jaamacadaha markay dhameeyaan skills leh ama macnaha ay sheeg xirfado kala duwan leh si ay macnaha ay sheeg bartaas uga sii ambaqadaan wax walbana ay iskeeni jireen waxa ugu weyn oo caqabada noqday ayaa sidoo kale waxa kamid ah Donald Trump oo wadamada Europe iyo waliba Canada ugu sii daran yahay oo sidoo kale tariffs ama canshuuraha xad dhaaf maalinba maalinka ka dambeeyay uu ku soo dalacayo asaga oo aanan rabin in Canada ay ka hormarto maadaama sida ognahay Canada uu yahay wadan weyn balse population-ku uu aad ugu yahay 38 milyan kaliya ay ku nooshahay 40 milyan xitaa uu san gaarin ay sidoo kale ognahay waxa kaliya Canada ay sidoo kale qorsheynaysay saacadihii bilihii la soo dhaafay sanadihii la soo dhaafay sidoo kale Canada ayaa waxay ahayd in population-keeda ay kordhiso qaxoonti fara badan ay qaadato wadankeeda ay keento saas ay uga shaqeeyaan wadan walbana sidoo kale waxa hormariyay dadka migrants ka ah ama dadka soo galootiga ah ee skill kale ee jaamacadaha ay Canada u keenaysay fikrad fiican ama filsafad fiican ay Canada ku socotay kahor inta uusan Trump ku guuleysanin doorashadan labaad ee 2024 ka uu ku soo baxay sidoo kalena tuuganimada loogu xaday musuqmaasuq far badan uu jiray sida la sheegay balse baaritaano xooggan la sameyn doono markii ay aqlabiyada ku guuleystaan qolooyinkan dimuqraadiyiinta wadankan Mareykanka sidoo kale sidaas la mid ah fadlan muuqaalkan ku soo gaaray fikirkan laba muuqaalka laga noo sar hadii aad nagu cusub tahay nagu soo dhawow sidoo kale nagu soo biir waana mahadsan tahay